kusoo dhawaada qaybta lixaad ee barnaamijkeena aan ugu magac darnay miisaan. qaybteena shanaad waxaan uga hadalnay laba wajiilanimada ama laba miisaanlanimada caalamka ee ku aadan dhanka Falastiiniinta. barnaamijkan lixaad waxaan uga hadli doonaa laba wajiilanimada dhanka waxa loogu yeeray Israa'iil ee ku aadan Falastiiniinta. laba wajiilanimada Israa'iil ee ku aadan Falastiiniinta waxaa ka mid ah inkasta oo ayagu ay yihiin dadka dhibaatada geysanaya, inkasta oo ay ayagu yihiin dadka dhulka xooga ku qabsanaya maalin kasta, dadka wax dilaya, dadka wax xiraya, dadka wax bambaynaya, haddana waxay ciyaarayaan kaarka dhibanaha, way calaacalayaan, waxay leeyihin waana la dhibaataynaya, waana la necab yahay, waana la cirib tiri rabaa. intii aan noolay waxyaabaha aan arkaya waxaa ka mid ah inay doonayaan inay wax cirib tiraan, laakiin hadalladooda markaa dhegeysta waxay iska dhigayaan dadka dhibanayaasha ayaga ah dad la cirib tiri rabo, dad la dhibaato lagu wada maalin kasta. laba wajiilanimadeeda waxaa ka mid ah inay dadka wax alla waxay rabaan ku tilmaamaan, inay yihiin bahallo, inay yihiin xayawaano, inay yihiin dad aan istaahilin nolosha, inay yihiin daanyeero, inay dhibashada ku fiican yihiin oo aysan nolosha ku fiicnayn. wax alla waxay rabaan ayay ku sheegaan dadka Falastiiniyiinta, laakiin ayaga markii wax yar la yidhaahdo tusaalahaan inay dad Israa'iil tahay midab kala sooc iyo waxyaabo lamid ah, waxay la soo baxayaan kaar la yidhaahdo yahuud nacayb ama antisemitism ama mucaadaatu saamiya waxa loo yaqaano, oo macnaheedu iyo dadka semitiga ah nacab tahay. inkastoo la ogyahay in carabtu naftirkooda ay ka mid yihiin dadka semitiga ah, laakiin taas waa mawduuc kale. waxay la soo baxayaan wax waa hore dhacay oo ah waana la xasuuqay, Hitler ayaana lay jiray, waana la lacab yahay yahuud nacayb qofkii hadla. midda kale kaartooyinka ay isticmaalayaan waxaa ka mid ah tusaale ahaan annaga hadda waynoo kala duwan yihiin ereyga ah qofka carabka, qofka muslimka, Falastiiniyiinta, waa arrimo badan oo aan iskor saarayn. laakiin ayaga haddii aad tusaale ahaan tiraa Israa'iil ama sahyuuniyad ama aad tiraahdo yahuud ama aad diinta yahuudda ka hadasho, wixii dhan isku magac ayay ka dhigteen, isku midayna u tahay. waxaayna leeyihiin col ayaana la leeyahay, waana la tirtirayaa, waddan kale ma lihin, halkan waddanan aan leenahay, hana la saacido, ana la badbaadiyo, waddan kale ma lihin, waa yarnahay annaga dhan. kaarkaasay la soo baxayaan, laakiin haddii aad u fiirsato waxa dhibaatada geysanaya waa ayaga. 70 sano oo lasoo dhaafay dadka wax barakicinaya, wax dilaya, wax xirayay ayaga ayay ahaayeen. saasay tahay weli waxay ciyaarayaan kaarka dhibanaha, aad ayuuna ugu shaqeeyaa kaarkaas. waxyaabaha eeliya waxaa ka mid ah dad ayaa la gowracay, bini'aadamnimada ka mid maaha, laakiin ayagu dadka inta dilaan ayay ku kaadinayeen. waa la hayaa fiidiyadooda waa la hayaa ayagoo ku kaadinaya dad inta dileen, laakiin waxay iska dhigayaan in dhibka ayaga keliya loo geysta. laba wajiilnimada waxaa ka mid ah in dhibaato weyn inta geystaan oo qirtaan, sida isbitaalkii maalindhood la duqeeyo oo kale, ay haddana inkiraan oo haddana laga yeelo. waxaa ka mid ah inay dhahaan ilmo in la laayo gar maaha, ilmo in la laayo ma fiicna, iyo waxyaabo lamid ah. ayagu ayse ilmo iyo ilmo la-aan kala jeclayn ay dadka wada duqeynayaan. waxaa ka mid ah laba wajiilnimada kaarka ay aadka u ciyaaraan oo hore aan usoo sheegno oo ah yahuud nacaybka iyo waxyaabaha lamidka ah. laakiin waxyaabaha ay ayagu ka hadlayaan haddaad u fiirsato waad yaabaysaa, laakiin ayaga waxba lama aha. tusaaleahaan carab wanaagsani waa carabkii dhintay tusaaleahaan, iyo hala tirtiro, iyo dhulka halala simo, cadaabta hala dhadhansiiyo, isirkooda hala baabi'iyo, waxyaabahaas ayay dhahaan. laakiin macnaha ayaga haddii wax yar la yidhaahdo waxay leeyihiin waa yahuud nacayb, inna la tirtiraa la rabaa. laakiin ayaga hadalladoodu macnaha wax dhiba ma leh. hadallada ay ku hadlayaan dadka dowladda ku jira, iska dhaaf dadka shacabka, dadka wasiirada ah ama jagooyinka sarahaya, ayaa waxa ay tilmaamayaan inay doonayaan inay dad xasuuqaan. haddii ay dhahaan dadaana la ka dilay ee aad inkirto tiraa caddayn looma hayo, waxaa lagu leeyahay yahuud nacayb waayo hadalkaas. kaarkaas ayaa lagula soo baxayaa, waana lagu buuranaa, dunida dhanna ayaga la jirsanaysaa. waxyaalaha ay ku hadlaan maalin kasta waxaa ka mid ah dhul kale ma leeyihiin. okay, Falastiiniyiintu ma dhul kale leeyihiin? ayagu waa laba wajiilanimo. haddii ayagu dhul kale lahayn, Falastiiniyiintuna dhul kale ma lah. sida laga yaabo inaan barnaamijkii hore kusoo sheegnay, dadka loo yaqaano settlerska ama mustawdiniinta waa dad hubaysan oo dadkana laaya, laakiin dadkaas cidda wax u geysata shacab ayay wax u geysata. laakiin shacabka Falastiiniyiinta qofkii wax u geysta muqaawamo ayuu wax u geysta. waad qiyaasi kartaa meesha aan u socdo. muqaawamada dadka ay dishay waa bini'aadamnimo ka bax, waa waxaan suurtagal ahayn inay dad dilaan. laakiin ayagu dadka ay dilaan xataa ayadoon dagaal jirin, xataa ayagoon waxba laga dilin ayaga, xataa ayagoon xamaas waxba u geysan, dadka ay dilaan, dadka ay toogtaan, dadka macnaha ay dadkaas aan soo sheegno mustawdiniintu ay laayaan, macnaha dhib ma leh. laakiin ayaga wax yar haddii laga hadlayo waa argagixisanimo, xaqna looma lah. waxyaabaha ay meelaha la taagan yihiin waxaa ka mid ah dhulkan 3500 sano ka hor ayaan lahaa jirnay, haddana waa u soo laaban. okay, haddii la yidhaha nin kasta 3500 sano ka hor meeshuu deganaa jira u laabto,
maxaad isleedahay way ku dhici doonaan dowladaha sida Mareykanka, New Zealand, Australia oo la ogyahay in waddankaas dad kale lahay laakiin la laayay lana degay meesha dadkaas xaq mu leeyihiin maanta inay inta soo laabtaan dhahaan waddankeena hanala kaga guuro tusaale ahaan haddiiba waxa ay sheegayaan ay runta waxyaabaha maalin kasta ay ku dhawaaqaan waxaa ka mid ah ama Israa'iil ayaad la jirtaa ama argagixisada laakiin qofkii sidaas si la mid ah yiraahdo ama Falastiin ayaad la jirtaa ama Sahyuuniyadda wax ka dhaca waa la yaabayaa waxyaabaha la yaabka waxa ka mid ah haddii aad tiraa Holocaust-tagi tusaalaan ma dhicin oo kale ama wax la mid ah waa la yaabayaa buuqa ka yeera laakiin ayagu maalin kasta waxay la taagan yihiin wax Falastiin la yiraa ma jiraan Falastiin weligeed ma jirin Falastiiniyiin wax la yiraa ma jiraan ama waxyaabo la mid ah laba wajiilanimada ugu yaabka badan waxaa ka mid ah qof caddaan ah oo aad u jeedo oo haysta baasaboor Mareykan ama Ingiriis ama waddan kale oo reer Yurub ka mid ah ayaa imaanaya maanta soo degaya boorsooyinkiisa soo wata qof Falastiin ayuu guriga kala baxaya qofkaas guriga lagala baxayo oo Falastiiniga ah abka ayay deganaayeen meesha qofkaas Falastiiniga ayuu deganaa laakiin nin ayaa imaanaya ka yimid waddan kale wuxuu leeyahay aniga yahuuda okay haye orod qaado gurigaas qofkaas marka waa shacab ayaga agtooda shacab ayuu ka yahay qofkaas guriga laga baxshay haddii uu berita soo laabto ee dagaalamo waa argagixisay inkastoo gurigiisii uu qaatay qof shalay yimid asagoo ninkan intaasoo 100 sano deganaa meesha waa la wajiilanimo la yaab leh waxyaabaha cajiib kale oo aan ku soo gabagabaynayo waxaa ka mid ah qof caddaan ah oo u jeeda inuu caddaan yahay sida laysku raacsan yahay yahuuddu asal ahaan caddaan ma ahayn waxay ahaayeen dad carabta camal ah laakiin maanta qof caddaan ah ayaa imaanaya xaq ayuu leeyahay inuu dego meeshaas haddii uu sheegto inuu yahuud yahay laakiin tusaale ahaan qof abkiisa isirkiis uu yahuud ahaa jiray laakiin muslimay waa hore ee dadkiisa dhan ay muslim yihiin laakiin dhiig ahaan ka soo jeeda reer bani Israa'iil macnaha xaq ma laha dhulkaas haddii aan si kale u dhigo qof reer bani Israa'iil asal ahaan ka soo jeeda laakiin abka muslim soo ahay dhulkaasna degan waxaa ka xaq badan nin reer Yurub ah oo yahuudnimada qaatay kaas ayaana la tixgelinaya mowduucan waa mowduuc dheer intaas ayaan hadda ka gaaray wassalaamu calaykum